Assalaamu calaykum. Maanta waxaa idin la wadaagi lahaa si caruurtaada u bari lahayd saacada. Waa ogahay saacada marka la baranayo caruurtu way ku dhibtoonayaan, laakiin fudaad waxa uu dhigi kartaa adigoo soo gadayso saacadan ama aa u sameynayso sida aan xaashadan oo kale u sameeyay. Si fudud waa caruurtan way jecel yihiin markay sameynayaan. Marka hal qof aa su'aalayo halka qofka qalina wuu ka jawaabayaa. Hadaa adiga hooyo tahay oo caruurtaada oo yar yihiin weli, adiga waa weydiin kartaa, qofka kalena wuu ka jawaabi karaa. Marka ayagana way jeclaanayaan markay isweydiinayaan because markay challenge gareynayaan waxay ismaleynayaan macnaha inay wax walba ku fiican yihiin. Marka adigana waa dhiirigelinay markaas oo kale waxa dhahay oo kale hadaa saacadan si fiican u barato oo kale hal apple ku siinaa ama hal yogurt ku siinaa si cunto oo healthy ay cunaan ayagana macnaha wax u bartaan oo funny ah. Marka waxa ku tusinaa si ay isku weydiin lahaayeen oo ayagana ugu jawaabi lahaayeen. Marka hal gabar walaasheeda waxa dhahaa saacada weydii, gabadha kalena waxay ka jawaabay saacada. Meeshan ayadana way wareejinay arrowgan oo minute-ka ah iyo arrowga hour-ka ah ay kala wareejinay si saacada ay sax ugu sheegto. Marka can you please ask your sister one of the time? Can you show me how to do 1:30? So she asked this one 1:30 and the other one is doing it quickly. Can you do it again please? How did you do? Explain to me. So I put the minute hand on the 6 to show it's 1:30, and I put the one on the hour hand to show it's 1. Okay. waxay dhahday the minute hand waxaas dhigay meesha oo half ah and the hour hand waxa dhigay meesha 1 ah to show that it is 1:30 si aan ugu sheego saacad inay tahay 1:30. Can you ask another question please? Which one are you going to ask? Can you show me how to do 4:15? Oh, she's going to ask this one. So su'aal kale weydiinay su'aashan midaan waaye xaashooyinkan oo kale wax yar aan wax ku qorlay waa la gedi karaa hataa way isweydii karaan saasay sameey karaan. So ayadana quickly waxay u sameynay 4:15 waa kana. Marka caruurta markay saacada ayagana baranayaan waxa loo baahan yahay 5 times table inay bartaan 5 times table inay bartaan way loo baahan yahay because haday 5 times table si fiican u kaseen macnaha ma ogaa karaan where the 4:20 or 4:15 or 4:16 saacaday tahay. Marka also saacadahan oo kale hadaa rabto macnaha waxa ka soo gadan kartaa oo aad England aad joogto Argos ka soo gadan kartaa ama Amazon online ka dalban kartaa easy way. Marka caruurtaada markay guriga joogaan oo kale waxa dhigi kartaa hooyo kaali bax saacad ii sheeg. Saacada markaas ay xisaabtamayaan waxay fiirinayaan where the hour is, where the minute is, where the past is. This is really nice. Watch. aad aan ugu helay wallahi ayagana aad ay u barteen masha Allah ayagoo yar ay saacadan wax walba ka aqaanaan. Marka waxa ku rajeynaa si ay saacada caruurtaada u bartaan adigana macnaha ka qayb gal adigoo mobilkaaga meel dhigayo oo waqtigaaga gaarka ah siinay caruurtaada si ay wax walba u bartaan. Maca salaama.